aniga ma rabin guurka ka hor in la dhaho ereyo macaan xitaa waxaan rabay in la dhaho guurka kadib. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halka aad naga daawanaysaan waa Cabdiweli Jubba official. fadlan videoga like saar, subscribe, comment. maxaa idin wadaa waa qiso ku dhacday gabar Soomaaliyeed. inta badan waxaa iska batay dhibaatooyin faraha badan ee u geysanayaan ragga dumarka. gabadhan magaceeda igu sheegtay in la dhaho Nasro. waxay dhahday jaceylkiisa dartiis ayaan familkeyga ooga soo gaay. haddii waa familkeyga. guurka kadib waxaa hawada ka baxay qadarantii uu i qadarin jiray, erayadii macaanaa ee uu dhihi jiray, romantic warkii badaa. waxaaba taasi iiga darneed guriga subaxii siduu ooga baxo waxa uu imaan jiray habeenkii. waxay dhahday aniga ma wuxuu ii guursaday inaan guriga u waardiyeeyo mise inaan qoys farxad iyo jacayl ku wada nool noqono. waxaan isku dayay taas inaan kala hadlo, maba i qadarinayo, xitaa hadalkayga ma qadarinayo, xitaa hadalka wuu iisoo gaabinaa. waxay raacisa xitaa markuu iga tago habeenkii oo micnaha markuu shaqada ka imaado, xitaa waxay dhahday markuu habeenkii shaqada ka imaado waqti ilama qaato, jabi ilama qaato. waayo wuxuu dhahaa habeenkii markuu shaqada ka imaado kadib wuxuu leeyahay oo kale waa baxayaa oo asxaabteedaan iska aadayaa oo kale, farxad ima siiyo. inta badan wuu iga maqan yahay, asxaabteedaan iska aadayaa oo kale, farxad ima siiyo. marka sidee nin noocaas oo kale ula joogaa ama aan una noolaadaa? waxay dhahda xataa ay raacisay familkeyga xitaa asagoo ay ii diidan yihiin oo ay leeyihiin ninkan kuma wanaagsano, ayaan daraadiisa ayaan familkeyga u jaray, aan u gooyay oo kale. familkeyga xataa waxay ila rabeen nin camal oo adiga wadamada qurbaha ka imaado oo kale ila rabeen. anigana asigaa si xad dhaaf oo jeclaa oo jecel waaliyaan u qabe. waalidkeyga xataa taladooda waan ka tilaabsaday, waa asaga dartiisa. maxaa is dhahayay qofkan waa qofkii kugu habboonaa nolosha, waa qof ku wanaagsan, waa qof ku qadarin doono, waa qof waqti walbo farxad ku siin doono, waa qof waqti walbo ilinta kaa soo daadanayso xitaa kaa tiraay ama kaa ilaalina xitaa inay ilin kaa soo daadato oo kale, farxadaada ka talinayo. maantadan sidaan u maleynayay maysan dhicin. marka gabadhan waxay leedahay ila taliya oo tali isiiya oo kale, talaan u baahanahay camal. horta aniga gabadha midaan u sheegi lahaa, horta jacaylku wuxuu ku dhisan yahay ixtiraam. marka kuwaad qofka waa inuu ku ixtiraamaa, iyo mar walba qofka inuu ereyo macaan leh ku dhahayo oo adiga ku farxad gelin karo, oo xumaan walbana uu kaa dhoorayo. qofka marka koowaad aa wada sheekeysanaysaan ama Soomaalida u taqaanaa shukaansi oo kale, keliya ma aha qofkaas markaas keliya inuu ku dhaho ereyo jacayl. in ereyo jacayl is dhaho xitaa guurka kadib. haddii kale waxaad muddo dhisayseen ayaad hal maalin ku duminaysaa. wixii aad kula talin lahayd gabadhan fadlan hoos noogu soo qor. waa mahadsantihiin.